kulankan oo ahaa mid u dhexeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Sinaaye iyo shirgudoonka golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa muddadii uu socday lagaga wada hadlay xal u helidda arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliland iyo kaalinta ay golaha guurtidu ku leeyihiin arrimahaasi. Shirkaasi ay wada yeesheen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo golaha guurtidu oo saxaafaddu aanay goobjoog ka ahayn ayaa markii laga soo baxay ay warbaahinta dawladdu wax ka weydiisay ujeedada shirkaasi. Guddiga golaha guurtidu uga qayb gashay shirkaasi gudoomiye ku-xigeenka golaha guurtida ee Soomaaliland ahna kusimaha gudoomiyaha guurtida ee Soomaaliland mudane Siciid Jaamac Cali ayaa daboolka ka qaaday in aanay golaha guurtidu aanay ka noqon doonin go'aankii hore ay u soo saareen waxaanu ku adkaystay inuu yahay mid sharciya. golaha guurtidu go'aan buu gaaray go'aanka uu gaarayna wuxuu muddo korinta uu ka gaarayna waa la socotaan muddada uu labada qolaba u kordhiyay go'aankuna ma ahayn mid iska yimid wuxuu ahaa mid sharciyad ku salaysan qodobo dastuura iyo waajibaad uu gaar u siiyay dastuurku golaha guurtida waxaana siiyay annaga qodobka 83aad faqradiisa 5aad baan siiyay sidoo kale tana ma ahayn mid madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen uga codsadeen korinta iyo golaha wakiil waxay ahayd mid dastuurku uu toos noo farayo annaga marka waajibaadkii sidii aan u qaadanay uu dastuurku noo farayay go'aankii aanu ka soo saarnay aanu ka kordhinay golaha guurtida wax iska bedelay ma jiro mowqifkiisii go'aankii sidii golaha uu u kordhiyay buu goluhu ku taagan yahay kulankaanu madaxweynaha la yeelanay nuxurkiisu taasoo ahaa gudoomiye ku-xigeenka oo ka hadlayay eedeymaha ay xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ay u soo jeediyaan go'aanka ay soo saareen golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay inuu sharciga baalmarsan yahay. eedeymaha ay soo jeedinayaan mucaaradkuna ma aha kuwa sharci ku salaysan waa kuwa baalmarsan sharciyada iyo dastuurka dalka inoo yaala. afayeenka golaha guurtida ee Soomaaliland xildhibaan Cabdiqaadir Maxamed Xasan indho oo isaguna ka hadlay ujeedada shirkaasi ayaa waxa uu yiri madaxweynuhu noo yeedhay wuxuu nagala hadlay arrin had iyo goor culays lagu saaro oo ah guurtidii lama hadlin mar walbana uu nala hadlaa waanu ka diidnay ka noqon mayno horena waanu intaa culays buuna saarayaa mucaaridka waxay ku eedeeyaan xukuumadda guurtidii lama hadlin madaxweynuhu intaa uu noo yeedhay wuxuu leeyahay arrintan kaale eega annaguna haddaanu go'aankayaga ka noqonno waxa la aliyo wax dalka ka jiraya ma jiraan uu noo yeedhay madaxweynuhu waana diidnay si cad baan u diidnay dastuurku waafaqsan yahay. xildhibaan xaaji cabdikariin xuseen cabdiwaraabe oo kulankaasi ka qayb galay ayaa xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland u sheegay in ay iyagu leeyihiin tala soo jeedin. waxaan qolada mucaaradka leedahay iyagu tala soo jeedin bay leeyihiin waxna waa akhriyeysaan dhammaantiin ragiina yaryar waxna waa idin dhaafsan yihiin haddana ku socon maysaan. xaajigu waxaa kaloo wax lala yaabo ku tilmaamay in 4 bilood ee ay golaha guurtidu ku dareen ay xaaraan tahay inta kalena ay xalaal tahay. gabagabadii oday Cabdiwaraabe waxa uu kula taliyay xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland inay si fiican wax u doonaan. ujeedadu ma aha sanadkii iyo 6 bilood ay soo jeediyeenna waa xalaal 4 bilood ee ku darayna waa xaaraan miyaanay wax lala yaabo ahayn. qoladaa waxaan leeyahay war madaxnimona waa doonaysaan madaxnimadiina waa hor joogsanaysaan dibu migisada basarku doona hore idinka waanu idin kordhinay maxay ceebo ahaan weyd 2 goor baanu idin kordhinay ciro marna lagama hadlin dagaalkii naga dhacay ee 3 gole hadli maystaan aan idhi ee iyaala unbu ku fadhiya. Axmed Saki Daahir Xasan iyo Cabdilaahi Cali Suudi telefishinka qaranka Soomaaliland xarunta aqalka madaxtooyada Soomaaliland ee Hargeysa.